waxbartaan barwaaqo gaarne. السلام عليكم guys ku soo dhawaada casharada imtixaanaha oo online ka aan ugu barateen haadaan oo kale inaan idin soo gudbino. Casharkeena maanta waxa uga hadlaynaa mowduuc aad u xasaasi badan HIV ay ku hadlaynaa sida loo baaro. Inta aan u guda galin ka hor mowduucaas waxaan idin codsanayaa fadlan hadda channelkeena ku cusub tahay subscribe noo saar. Mowduuca maanta waxaan ka hadlaynaa HIV. HIV maxaa la dhahaa? HIV meeqa loo qeybiyaa? Testiyada waxaan baranaynaa testiga ugu fiican ee HIV lagu baaro waxaa loo yaqaanaa Triodot test loo yaqaanaa. HIV rabbit ugu fiican lagu baaro Triodot test loo yaqaanaa ama Triodot test. Triodot test waxa lagu bixiyaa triangle test way. Mid waxa uu ku muujinaa T, midna waxa uu ku muujinaa C, midna T1. Yani waxa la confirm kareynaa laba jeer inuu qofkan jirkiisa ka kooban yahay antigen-ka HIV inuu ka kooban yahay. Waxa la confirm kareynaa HIV-ga qofka bini'aadamka antibody ahaan jirkiisa yani antibody ku jiro IgG immunoglobulin-ka waxa la fiirinayaa inuu reaction la sameynayo. Marka immunoglobulin-kaas lagu fiiriyaa. Marka waa kana badhankaas kor waxa ku qoran control HIV1 iyo HIV2 oo laga soo gaabiyay test 1 iyo test 2. Laba mar la baaraa. Labada mar la baaraa sample-kan la isticmaalaa. Marka midkan HIV rabbit ka isticmaal waa midka ugu fiican nooca ugu fiican oo ilaa hadda WHO confirm kareysa way. Qofka laga baaro HIV laga baaro wuxuu ku siinaa saddexdaas dhibic calaamad u jeedid dot waxa loogu magacaabo dhibicdaas oo ku siinaa saddexdaas dhibic oo ku siinaa triangle kaas oo ku siinaa saddexdaas dhibic dot ku siinaa. Hadaa saddexdaas dhibic adeegtid resultkaas ku soo baxay. Marka waxa loo isticmaalaa only for serum loo isticmaalaa must be used for testing. Hadaa isticmaalaysa serum bas u baahnaaneen dhiiga serum kana ku shubtid kaas bas loogu talagalay wax kale looma shubo. Waxyaabaha kalena iska ilaali reagent-ga isticmaalaysidna waa inuu uusan expire ahayn. Waxyaabaha aad ugu talagalay ku isticmaalaysidna sida dhiigo kale waa inuusan ahayn dhiig lysis ku jiro oo go'an. Qaabkaas loo isticmaalaa. Marka waxa u baahan tahay sida test tube dhiigana u baahan tahay. Number 2 waxa u baahan tahay kitka reagent-ga requirement-gaaga iyo reagents-ka u baahan tahay. Reagents-ka la isticmaalayo waxay u qaybsamaa saddex mid loo yaqaan buffer solution iyo conjugation reagent iyo waxa jiro baal loo yaqaan dropper kuwaas isticmaalay. Marka qaabkaas loo baaraa. Qaabkaas waxa u baaray HIV u baaray kuwaana isticmaalay qaabkaas ugu baaray. Marka sidee testiga loo sameeyaa? Waxa soo qaadanay baalka loo yaqaan kitka soo qaaday waxa ka furay bacda ku jiro ka furay. Bacda ku jiro marka ka furtid isla marka bacda ka furtid dhulka dhigay waxa soo qaaday buffer solution. Buffer solution-ka ku shubay waxa ku qortay patient identification number buffer solution-ka ku shubtay. Buffer solution marka ku shubto buffer solution-ka waxa rabaa inuu meesha dejiyo wasaqda muqallafaadka oo ka kooban yahay iga dilo. Dan waxa ku shubaa serum sample-ka oo patient-ka uu leeyahay. Serum sample-ka marka ku shubo conjugation-ka soo qaadana. Conjugation-ka isticmaala. Conjugation-ka marka isticmaalo oo aan ku dhibciyo markaan isticmaalo serum-ka dan waxa ku xujinaa buffer-ka haddana conjugation-ka isticmaala buffer-ka ku xujinaa saasa u isticmaala. Buffer-ka before iyo after baa la isticmaalaa. Yani buffer-ka ka bilaabay dan waxa ku xujinaa conjugation-ka saasa u waday. Marka resultkaana ku soo muuqanay interpretation-ka waxa arkay control inuu ku soo baxay dhibicaas da control ku soo baxay wax la hubo reagent-gaaga wax la hubo. Reaction-kan still not reaction waxa waa reaction socdo. Wax yar kadib waxa laga yaabaa inuu ku soo muuqdo hal xab inay hesho reactive HIV1 heshay. HIV1 hadaa heshid waxa leedahay waxa helay HIV1 helay. Qofkan wuxuu qabaa HIV-giisa beri test examination way. HIV2 heshay oo labada xabaa ka heshay waxa leedahay wuxuu qabaa post HIV oo qabaa. Yani cudurkii markuu qofkan labada test laga helo xaalad oo wax laga qaban karin waaye oo post diagnostic oo gaaray. Marka labada marka la confirm gareeyana waa confirmation-ka ugu saxsan oo qofka inuu jirkiisa oo baalku ku dhex nool yahay aan laga dhex saari karin way. Marka xaaladdu invalid noqdana wax ka soo muuqanaya ma jiro wuxuu noqonaa kulli meesha dhan wuxuu noqonaa empty uu noqonaa wax ka soo dhex muuqanaya ma laha. Marka xaaladaas tuu ku noqdo waxa ogaanaysa wax badan
oo invalid ka qaldan yahay marka invalidkaasaa jiro marka HIV qaabkaana loo baaraa qaabkaasa ugu fiican baalkaana ugu fiican oo kidkaana ugu fiican kididi intaan kasii badan way jiraan oo loo isticmaalo HIV-ga waxaa kaloo jira kididida oo magaalada ugu fiican la isticmaalo waa jiraa kididadaas waa la isticmaali karaa kuwaasaa lasoo qaadi karaa kuwaasaa waxaa la sameyn karaa in oo testiyadan lagu sameeyo waa lagu conform garey karaa marka dhammaan kididadaas way jiraan marka waxaasoo dhan waa la isticmaali karaa laakiin kidkan waa lagu kalsoonaan karaa mawthuuq waaye ilaa hadda kana WHO ogolaatay oo la isticmaalaa waxaan kale oo hadda magaalada yaalo oo HIV lagu baaro badan laguma kalsoonaan karo waxaa arkaysaa qof HIV qabo oo HIV-1 qabo oo ku dhahay HIV ma qabi negative waaye marka ka taxadira iska ilaaliya oo cudurkan cudur aad u halis badan waaye meelaha aadka loogu qaado waxaa kamid ah waa taqaaniin sida daandida meel lagu bixiyo ama ilkaha lagu qurxiyo oo magaalada kusoo badanayo kale aad u far badan ugu haya dadka inay kasoo qaadaan iyo isbitaalada kale yacni isbitaalada markii qaliimada la galayo kale agabyada lagu galo iyo farmashiyaasha kale agabyada dadka lagu dhaayo kale qofa imaanay oo lugta ka jiran waa la dhaayaa marka wixii loo isticmaalayo maqasti argumentiga la isticmaalayo instrumentiga waxaa laga yaabaa inuu jiran yahay marka waxaasoo dhan ka taxadira caafimaadkiina ilaaliya cashirkeena intaasaa kusoo gabagabeyneynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.